munaasabadani ballaaran oo ahayd mid ay ardayda sanadkani ka baxaysa dugsiga sare Candlelight Burco ay ku sii sagootinayeen maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi Candlelight ayaa ahayd mid kulmisay dhammaanba bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa maamulka macallimiinta iyo waliba ardayda sanadkani ka baxaysa dugsiga Candlelight ugu horreynba waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ardayda sanadkani u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga waxaana sharaxaad ka bixiyeen ujeedada munaasabadani xafladan aan maanta u qabanqaabinay 4 sano maanta macallimiintii wax noo soo barayeen cilmigeena soo barayeen intifaacana soo barayeen iyo maanta aanu sii sagootin doonaa sii sagootino waanu duco kala tagno waayo maxay tahay 4 sano dhammaan cilmigooda shaqaynay maskaxdooda dhuuqaynay maankoodii dhuuqaynay marka waxaan doonaynaa inaad ducoona raacisaan maanta marka aad iyo aad baan u salaamayna dhammaan macallimiinta waqtigooda noo horay amuuraha dugsiga Candlelight iskuul weeye kureeyaho كون واحد سكول هذا حقيقي ساكو كنقضي معمل كارلو كتباك نقول كيسي لما غير لوربي داوا أرتدا وكوبنا حج بعد مدة كرشة مسلم نقدنا كوي آد معيدو تكسي جاسبان كور رمي مين مكافتوم كرا على هذه بعد ما هتسنتين معلمين تيجوا انت سنة نوصل تعبتي علمي جاينا بريهم حنلاقي هاي الله ينك شافيو waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan ardayda hore waxaan leeyahay iyaguna wax qabadka ay qabteen wad ku mahadsantiin waxaan kaloo leeyahay iminka waan sii dhameynay dugsiga waan ka baxnay laakiin si macallimiinteena kamaynu tagin kamaynu bixin si waxaan ku dhahay meel kasta ay joogaan waa macallimiinteeni waxaan ku sidaas aynu ku daryeelo waxaan filayaa ardaydaasi waajibkoodii way garteen say nooga muuqato xafladan waxaan nagu marti qaadeen afur waxaan nagu marti qaadeen casho saadiradeed waxaan oran karnaa maadaama ay waajibkii macalinku la ay garteen tii waalidka iyo tii dalka iyo tii diintana insha Allah inay saasi leeg u garanayaan waxaan markaa oran karnaa waxa ka muuqata waxbarasho aan oran karno waa waxbarasho lagu aflaxay aan mahad u jeedinayaa ardayda xafladan soo qaban qaabisay ee sharaftay macallimiintoodii iyo maamulkoodii ay garatay waajibkii ka saarnaa waan idin ducaynaynaa inuu ilaahay imtixaanka shahaadiga idinku soo foolgalaha idinku soo dhow si qurux badan iyo natiijo wanaagsan idinka siiyo si wanaagsan ah u dhaaftaan idinkoo isku dhan waa xaq nagu leedahay waxa weeye inaanu diisi ducayno mar haddii anagu nahay macallimiintiini waxaanu jecelahay in waxa weeye aadeen imtixaanka kaalmo sare aad keentaan oo ay garteen waajibkooda iyo roolkooda oo ay garteen inay yihiin dad iyagu mas'uuliyiin wadadii bay hayaan ardayda kan la mari jirtay gudoomiyaha hay'adda Candlelight ee gobolka Togdheer Xasan Cabdilaahi Daacad ayaa ardaydaasi kula dardaarmay inay si wadaan dadaalkooda waxbarasho anigu muddo badan ayaan iskuulkan inta badan aan joogay waa markii koowaad iyo markii labaad inay tahay garan maayo oo xaflad caynkan oo kala ah naloo qabto taasina waa lafteedana waa taariikh ardaydu marka ay dhameysatay iskuulka waa la kala tagi jiray marka adeerayaal waxa weeye sabir yar aynu yeelano oo aynu samirno dhulkana aynu aamino ciidda aynu aamino alxamdulillaah rabbil caalamiin jaaniskana aynu ka faa'iideysano waxbarashada anu markaas aynu kula dardaarmaya waxbarashada halowga waa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Somaliland Burco.